الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ثم الصلاة على النبي أكرم مبعوث بخير في أفضل الأمم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا إن شاء الله تعالى سنقبلنا سنة طبعات كان وحين سوق هذا بوجاني برنامج كاني نحور كبواكته بوجاني تطبعات بوجان تطبعات وحلو يقناه فارس Things First. بوغان waxa qoray saddex qoraaba wada qoray Stephen R. Covey iyo laba qoraayo kale. Boogan si guud wuxuu ka warramayaa jaanibka loo yaqaan productivity oo qofka siiba time management iyo si qofku waqtigiisa u nidaamsan lahaa. bugaag fara badan oo aan tira lahayn baa laga qoray time management-ga laakiin buugan waxyaabo ayaa jira bugaagta kale kaga duwan yahay markay jaanibkan noqotona aad baan u adeegsadaa markay jaanibkan noqoto time management-ga ama productivity-ga waxyaabo kaga duwan yahay waxa kamid ah buugan bugaagta kale wuxuu kaga duwan yahay kow marka hore waxa uu sameeynaya wuxuu ugu magac daray workshop tusaale ahaan marka uu ka warramayo marka uu tusaale ku soo qaatay ee ku yiraahdo waqtigaaga si aad u nidaamso waxa uu ku dhigayaa workshop-kaas uu ku dhigaya waana buugaagta kale wuxuu kaga duwan yahay akhrinta buugan waxay ka caawinaysaa kow inaad waqtigaaga qiimo ku yeesho inaad adeegsatid kelmadda no wax la yiraahdo waxaan uga jeedaa no يعني waxyaabo badan baa jiro markaad waqti dhigatid ama hadaf dhigatid ama yool dhigatid ama isaga waqtiga waxa qabo saacada quraanka xifti saacada barnaamijka qabo saacada shaqada noocaas soo qabo saacada buuga akhri waxa jiro waxyaabo badan oo ku dhabqinaya oo ku soo dhaxgelaya ama social media ama friends ama saaxiibada noqotay laakiin waynaad you have to say no waynaad taada no maya buugagan qabanay waxaygaas akhrisanay quraanka akhrisanaya shaqadan qabanaya wuxuu ka caawinaya marka inaad noqotid qof serious ah ka caawinaya waxa kale oo ka caawinaya in waqtigaagu iyo shaqooyinkaagu ay ku kala lahaadaan priority kala horumarinay ku kala lahaadaan ku kala muhiimsanaadaan wuxuu ka caawinaya kale inaad naftaada u hogaamisid qaab raadin leh oo qaab toolmoon inaad naftaada u hogaamisid oo aad naftaada iyo horumarkaaga iyo mas'uuliyadda naftaada adigu aad lahaatid aan cid kale kula lahaan waxa uu ka warramaya buugu waxa uu sidaa markaa si guud waxa uu sidaa buugu hal fikrad buu sidaa fikradda ka muuqata ciwaankiisa ay ah First Things First buu sidaa oo ah macnaheedu tahay shayga kuugu muhiimsan wax qabadka kuugu muhiimsan noloshaada qabo waxa jira waxyaabo badan oo waqtigaaga aad gelisid laakiin waxa waqtigaaga aad gelinaysaa ma garanaysid say u kala muhiimsan ma gelisid badan say u kala muhiimsan yihiin isagu wuxuu leeyahay markaa wuxuu ku dhisayaa oo ku kordhinaya inaad waqtigaaga u dhistid qaab ah priority shaqooyinkaaga inuu si qaab priority mesela tusaale kala waxaad dhigatay sanadkii waxaad dhigatay yool maanta sanadka inaad quraanka xifdidid sanadka inaad akhridid buugaag gaaraysa 80 buug oo kala tusaalahan oo kala waxaad kala dhigatay hadaf ah inaad sanadkaas soo saartid tiraba 3 buug ama 4 buug wuxuu leeyahay saddexda shaqo afartii hadaf aad dhigatay waa inay priority ku kala lahaadaan sida ay priority kugu heleen mesela waxaad quraanka inaad xifdiyo isagu waa first priority صح waqtigaaga daily life kaad gelinayso waa in isagu noqdo first things first isaga markaad qabatid shaqada kala qabo taas waxay ka caawinaysaa inaad noqotid qof hiraal iyo hami iyo hankiisi ku socda oo waxankiisi u adeegaya waqtigiisa gelinaya wixii noloshiisa ugu muhiimsanaa u go'aansaday in waqtigiisa gelinaya waxa uu soo qaaday mesela tusaale kala buuga tusaale kala soo qaadanaya cylinderkaas soo qaadanaya cylinderka ku sawiran cylinderka ku sawiran waxa uu leeyahay
wuxuu qaybinayaa dhagaxaan yar iyo dhagaxaan waaweyn waxa uu leeyahay had biyana uu ku shubaya cylinderkii markuu biyo cylinderku waa jeeg markuu biyaha ku shubo dhagaxaanta yareena ku guro qorraxa ku guro wuxuu leeyahay dhagaxaanta waaweyn dibadii marka yaalaan wuxuu leeyahay dhagaxaanta marka dhagaxaanta weynaa ku biyo fatahaya macna waxa ku jira yar logic trick ba ku jira wuxuu leeyahay dhagaxaanta waa first things oo wixii noloshaada ugu muhiimsan kala haddaan marka wax yar oo noloshaada aan muhiim u ahayn ka hormarisid waqtigaaga aad gelisid si dhagaxaanta weynaa kala midbada iska oolayaan hawlaha ugu muhiimsan adigoon qaban waqtigaaga uga faa'iideysan waxay ka waramayaan Stephen R. Covey iyo asxaabtiisu cutubka ugu horeeyay midna waxa ka waramay waxa ugu magac dareen The Clock and Compass The Clock waa saacadan aynu naqaano waa saacadan The Compassna waa jiheeyaha waxa loo yaqaano jiheeyuhu saacadu waxay qabataa buu leeyahay waxay qabataa ballanada iyo waqtiyadaada iyo waxaad ku kala nidaamsataa buu leeyahay waxay kale ku qabataa inaad wax qabadkaaga iyo waxaad qabanaysid time u yeeshid waqti ku u qoondaysid wuxuu laakiin compassku ama jiheeyuhu marka meel vacuum la dhigo meel banaan la dhigo meel arlada kamid marka la dhigo ama meel marka digtid jihadii uu soo saaraya mar walba always north mar walba waqooyi buu soo saaraya wuxuu leeyahay taas waxa la mid ah hiraalkaaga iyo hamigaaga iyo hankaaga aad leedahay hamiga iyo hadafkaaga aad leedahay ayuu ugu jiraa compassku halka compassku ugu jiro jihooyinka ayaa waxa kugu jira adigana hiraalkaaga iyo hamigaaga iyo hankaaga wuxuu leeyahay compassku wuxuu kugu jiraa qiyamkaaga iyo mabaadi'da aad aaminsan tahay kugu jiraa buu leeyahay wuxuu leeyahay waxa uu kugu jiraa buu leeyahay xeerarka iyo mabaadi'da aad ku dhaqmaysid ee ku hagaaya iyo meesha aad ka duulaysid waxa uu leeyahay marka tusaale ahaan adiga waxa qiyamku ah ama xeerku ah inaad waqtiga ku qabatid wax aakhiro iyo adduunba ku anfacaya wuxuu leeyahay marka markasta aad waqtigaaga qoondeynayso qorsheynaysid waxaad ka eegaysaa war waxaan aakhirana muxuu tarin adduunna muxuu taraya haddana labada midna ku taray maxaan qabanayaa waad wanaagsan soo weydiinaysaa maxaan qabanayaa waa soo weydiinaysaa waa tusaale marka anu soo qaatay buu kuma xusna laakiin waa macna yaano saaso kale buu ka wadaa waxyaabaha kale uu ku soo qaadanay wuxuu leeyahay waxa jira buu leeyahay saddex xabo qadiima waxa jira three systems baa jira time management loo gaasoo traditional saddexda markuu soo gudbiyo wuxuu soo gudbinay habkiisa wuxuu leeyahay habkaygan wuxuu kaga duwan yahay saddexda habar waxay ku dadaalayaan quantity-ga inta saacad waxa qabanaysa inteeba soo saaraysa inta waxa qabanaysa saacada waxa ku soo saar laakiin habkan wuxuu ka caawinayaa wax aad qabanaysa inuu hado quality inuu lahaado tayo inuu lahaado مثلا kala waxa tiri sanadada igu soo sheegay waxa tiri priority waxa ay kala sameysay wixii ugu muhiimsan aan qabanaya waa quality waad ka agta oo wixii noloshaada qiimaha u yeelay baad qabatay sideedabana waqtigeena waqtigu wuxuu ku barakooba hadba intii aad wax ka shato 40 saac qof walba haystaa laakiin dadku waxa ku kala duwan yihiin 40 saac ee la haysto 40 saac la haysta qaarba si u isticmaalaan nin wuxuu geliyaa game iyo waxyaaba buu geliyaa aan noloshiisa wax macaan ah ugu fadhiyo wax u soo kordhinay nina wuxuu geliyaa wax noloshiisa macaan u sameeynaya مثلا kala ninka hal saac masaajid intuu fadhiisto ama hal saac intuu maktabad fadhiisto ama hal saac intuu darsi xaadiro jaamacad tago wax soo dhigta sanadka baad wuxuu marayaa jaamacadii sanadkii labaad sanadka baad waxa laga yaabaa quraanka inuu kala badxiftiyo sanadka baad waxa laga yaabaa inuu ugu yaraan dhowr iyo 30 buug akhriyay ama aduu ugu yaraado 24 buug akhriyay ama 12 buug akhriyay ama 10 buug akhriyay halka uu leeyahay hal saac ama aad maqaaxi fadhido ama aad game ciyaaraysid ama aad wax kale entertainment aad ku mashquulsan tahay marka sanadka baad aad tahay qofkii uun baa tahay waxba kuma soo biirin labada qof waqtigoodii way camireen laakiin waxa kala duwan waxay ku camireen inagu ka faa'iideysteen inka ma faa'iideysan marka the main thing waynaad ku dadaasho waqtigaaga inaad gelisid the first thing waynaad ku dadaasho inaad waqtigaaga gelisid wax aakhiri adduunka anfacayo inaad waqtigaaga ku dadaasho inaad gelisid wuxuu isku qaybinayaa wuxuu leeyahay nolol maalmeedkeedu waa 4 khaanadood mid uun buu leeyahay
wuxuu ugu bixiyay quadrant 1 oo uga jeedo wax noloshaada muhiim u ah isla markaana degdeg ah waba degdegba iyo quadrant 2 oo ugu magac daray wax noloshaada muhiim u ah laakiin aan degdeg ahayn iyo quadrant 3 oo leeyahay wax noloshaada aan muhiim u ahayn oo important aan ahayn degdegna ah iyo quadrant 4 khaanada afraad oo ugu magac daro oo leeyahay waa wax noloshaada aan muhiimna u ahayn degdegna aan ahayn tusaalahan quadrant 1 baan soo qaadanaya wax noloshaada muhiim u ah degdegna adigoo quraan akhrisanaya masaajid ku jira ama buug akhrisanaya ama cashar ku jira wax ku soo wacay dhakhtar baa ku soo wacay inankaagii dhakhtar ku yaala waalidka dhakhtar ku yaala waa muhiim waalidka inaad u tagtaa inankaagii qofkaaga inaad u tagtaa waana degdeg oo accident baa dhacay shil baa dhacay waa quadrant 1 quadrant 2 buu leeyahay waa wax muhiim ku ah noloshaada muhiim bay u tahay waa hankaaga iyo hambigaaga weeyaan hadafkaaga weeyaan laakiin degdeg maaha 20 sano 10 sano 5 sano sanad 2 sano 6 bilood 7 bilood ka bacdi baad doonaysaa inaad gaadhin quadrant 3 wuxuu leeyahay waa wax tusaale ahaan markaa wuxuu leeyahay quadrant 2 wuxuu soo qaadanayaa hadafkaaga oo kala yoolkaaga oo kala san hadda idin soo sheegay quadrant 3 wuxuu leeyahay wax muhiimna ma laakiin waa degdeg adigoo hawl ku jira hadafkaagu adeegaysa ama shaqo ku jira muhiima oo quadrant 2 dhacaysa ama quadrant 1 dhacaysa wax ku soo wacay nin saaxiibka ayaa ku soo wacay wuxuu kugu yiri waxaad igu kaalayda maqaaxi habilaayo waxaad ugu timaadaa kubadaan ciyaarno waxaanad ogtahay in waxa ay isugu yeereysaan wax labadiinaba aan faa'iido u haynay tahay haday isaga faa'iido u tahay waa sax labadiinaba faa'iidadii maaha maxay ku dhacaysaa quadrant 3 waa muhiim maaha degdegna weeyaan waa ka degdeg ugu yeeray wuxuu leeyahay you have to say no ta wayna tada maya hawl baan ku jira hawsha marka soo dhameeyo waqtiga chance ka sanaya quadrant 4 buu leeyahay waxa weeyaan wax aan muhiimnahay degdegna waxa weeyaan tusaalahan tusaalahan wuxuu leeyahay fadhi ku dirirada meelaha la iska fadhiyo waqtiga lagu muhiimna kuma degdeg ma already adiga automatic isaga yimid oo automatic isaga waqtiga uu luminayo dadka waqtiga luminayo weeyaan waqtigan ku xasan waqtiga ku luminayo dadka yiraahdo weeyaan xulay marka labada khaanadood ee hore quadrant 1 quadrant 2 waxa ku dalaa dadka effective ka ah dadka serious ka ah ee quman baa ku dadaalay buu leeyahay waxa marka si guud buugu waxa uu ka waramayaa barakada waqtigeenu inay ku jirto inaynu camirano waqtigeena aynu kuna camirno wax nolosheena muhiim ah waxyaabaha nolosheena muhiimana waxaan idkula taynaa laba qaacido ka yaga waxa taadan warkow war waxaan aakhiro faa'iido ma leeyahay aakhiro wax ma iga taraya hadaan masaajid ku i'tikaafo 5 saac maalin 2 cisho de ajir weyn baa sugnaaday aakhiro waxay taraysa adduunkana waxaan ka helayaa reereyn iyo saacado hadaan quraan xifdiyo saacad ka mid waqtiga galiyo quraan akhriyo ajir weyn baa sugan waxaan aakhiro faa'iido ma leeyahay hadaan aakhiro adduunkayga faa'iido ma leeyahay aakhiro iyo adduun wixii aan faa'iido ku lahayn you have to say no anigan kule mar walba wayna taraa maya waxaan aakhiro adduun faa'iido midna ma laha ya aakhiro iyo adduun faa'iido ma laha mata tusaale kale waxti buug baan akhriyaa buugaad akhriyaysaa walaad ka eegtaa war buugan aakhirana muxuu ku tarin adduunkana muxuu ku taraya shaqada qabanaysa aakhirana muxuu ku taraysaa adduunkana muxuu ku taraysaa haddii labada midna nasiib ku lahayn oo meel dhaxays ka dhacayso taaduma inaad waqtigaaga luus garayso ma diyaar bawd waa hantaadi ugu qaalisan soo noqon mayso sikin soo celin karmaysid intaasan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo buuga buug runtii buugtaan ugu jecelahay buu ka mid yahay jaanibkan productivity-ga waliba siba time management-ka afkaar fara badan baa ku soo wax yar baan idin kala wadaagay intaasaan jecelahay ku soo gabagabeeyo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh